عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي الغالية واكنا سيدان نوصل بحضين سيدان وحاجاجيني إسلام من سعود الجمهورية وسميني سعود السنة تركنا كل معاي سعود سعود سيدان سعود الجمهورية إسلام كسمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يولاشينا واني سلامي البدنيد كجوجتين وحان لي عافيماد كوارا إيمانتو حانو ودا محاهي سوغيسين هي كيتشن أند بيوتي تشانل waxaad ka sugaysiin mar walba oo ku taqiineen inay wax kariso inay beauty keento wax la isku qurxiyo sida timaha sidii maxaa la dhahaayay wajiga okay maanta waxaan wadaa cunto casho yar ka soo tuuraneena cashadaas nala ark meeshaan waxaan ugu jiro bur waa malawax waa burka cusubdaas ku soo tarsaday isba yar oo qaanto teaspoon halfkeeda ku tarsaday meeshaan waxa iigu jiro biyo yar oo qandiir ah intana waxa iigu jiro aano laba qaanto ah iyo laba qaanto sokor ah sokortana ka badana marna meeshaan waxa noogu jiro ukuna noogu jirto halka marka waxa waaye maraq suqaarka hilibka manila wadaagin asxaabta sababtoo kaamirada nagu dheeraanayso marka hilibka dabka uu saaran yahay hadhow arkaysa markaan isku tarsanayno meeshaan waxa noo yaalo barbaroonigi basal cadeydii iyo kabsar caleen iyo toon iyo karootadii waaye oo soo jarana meeshaan waxa noo yaalo bataatigi ayaa noo yaalo macnaha waxa la jeedaa baradho ayay yareeyay aad soo yareeyay waa meeshaan asxaabta qaaliga marka asxaabta qaaliga wixii waa isku tarsanay hada markii inta sokorti iyo waxa nooga dhiman caanihi iyo ukunti marka aan ku dareynaa ukunti waa laba xabo ukun aan ku tarsanay marka asxaabta qaaliga hada waxaan ku tarsanay ukunti cusbadan hore wax yar ugu soo tar waan sheeg marka meesha waxa noo yaalo caanihi iyo sokorti laba qaanto sokor iyo laba qaanto caano isku tarsaneynaa marka waa isku soo qasaneynaa biyo qandiir ayaan ku qasaneynaa asxaabta qaaliga biyo qandiir meesha noogu jiro waa biyo marka waan sheegay hilibka dabka noo saaran yahay marka waxaan sameysanaynaa malawax iyo suqaar meel badun ku joogtiin waxaan leeyahay walaalaha igu cusub soo dhawaada channelka subscribe noo saar rukunta mar walba sida canjalad aan soo kaliya ay igu soo dhacdo ay ila socotiin mar walba meel walba joogtiin taawashada taawanaysiin waa ku mahadsantiin walaalahayga qaaliga aad baan igu mahadcelinayaa karbahayga ayaa tihiin familkayga kamid tihiin faniskayga ayaa tihiin mar walba taageero komitiga qurux badan ii soo tiro aad baan u mahadsantiin komitiga ii soo tirteen meel walba joogtiin waan ii mahadcelinayaa thank you ayaan leeyahay asxaabtayda qaaliga walaalahayga Soomaalida sharafta leh waxaan leeyahay mar walba waan igu faanaa dadkayga ayaa tihiin waxaan leeyahay noolaada kuliyo kobanimo waa kaas waa soo qasaneynaa marka biyihiina waa kan kulay malawax qof walba inta aad rabtaa qiyaas kartaa laba saddex koob bur ayaan ku soo shubtay inta iyo laba xabo ukun iyo caanihi waa la wadaagay marka aad isku soo tarsanaa insha Allah waan soo qasaneynaa malawaxi markaan duway waan la wadaaga insha Allah suqaarkii sidoo nooga soo baxay insha Allah waan la wadaaga walaalahayga qaaliga markaan ku tirayo waxyaalaha hadda sidaan u kortirtiri doono insha Allah sida kabsarto kale iyo toonto waa tumaneena laakiin inta kale way noo jarjaranta waa diyaar marka ugu dambeeyay waxaan ku tarsaneena basal cadeyda marka ugu dambeeyay aan ku tarsaneena iyo barbarooniga insha Allah iyo karootada marka la socod wanaagsan asxaabta meel baad ka joogtiin dariska ayaa buu ka jira muusiga ka taara marka ka raali noqda walaalahayga qaaliga marka waa kaas waxaan leeyahay walaalaha cusub soo dhawaada subscribe like and comment marka waa wadeena insha Allah waxaan soo diyaarsaneynaa malawaxeena soo qasaneynaa asxaabta qaaliga marka maraq waa suqaarki aan sheegay waan karinayaa marka ka raali noqdo caruur yar ayaa ku waxaan ku qasaneynaa maraq digaag
adi dhanaanka aad jeceshahay markaad waxaan ku darsanaynaa insha allah baradhada yaryareed oo niila wadaagnay waxaan ku darsanaynaa baradhada yaryareed waa suqaarkii ayaan karsanaynaa meel baa joogtiin waxaan ilay caafimaad ku waara walaalaha igu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada kitchen and beauty channel waa halkaan iga taabanaysin waa kitchen and beauty channel marka aan ku darsanaadteena waa kasbatay baradhadii aan kusoo dhameynay baradhadii aan ku darnay baradhadii aan soo yareynay maaragtiin aan ku daray waa suqaarkii aan ii sheegay marka kabsarcaleenta toonta waan ku darsanay marka waxaa noo dhiman waa karootadii barbaroonigii iyo basal-cadeydii iyo basasha gaduudan intaba marka waa kaas la socod wanaagsan walaaleyga qaaliga waa casho malawax marqeyda oo suqaar meel baad dunka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waara qaadasho waxaan meel baad dunka joogtiin soo dhawaada walaaleyga qaaliga aad baan i jeclahay channelka walaalaha igu cusub waxaan leeyahay subscribe like and comment and share aad baan i jeclahay waana nii mahad celinaa mar walba la socodkiina ila socotiin marka cawada waxay ka shidan tahay malawax iyo maraq socod wanaagsan walaalahayga qaaliga isku soo noqon doonaan walaalaha qaaliga meel baad dunida ka joogtiin caafimaad ku waara walaalaha qaaliga meel baad dunida ka joogtiin caafimaad ku waara waa kaas marka suqaarkii hilibka waan tusay marka meeshaan basal cadee iyo basal gaduud iyo barbarooni basasha cadee kadaal hata u soo taray hadda marka hore niilama wadaagin aan koonii sheegay marka waxaan ku tasaynaa marka ugu dambaysa asxaabta qaaliga meel baad dunida ka joogtiin caafimaad ku waara aan leeyahay soo dhawaada walaalayaal aad baan niigu mahad celinaa daawashadiina mar walba ay daawatiin like iyo commentiga ay iga dhistiin aad baa ugu mahadsantiin commentigeena quruxda badan commentigeena wuxuu noo yahay dhiirigelin walaalaha qaaliga meel baad dunida ka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku caaweeya Soomaali maxamedey marka la socdo asxaabta qaaliga markaad waxaa ku tarsanaynaa karootadii ayaan ku tarsanaynaa markaad karootadii aan ku tarsanay asxaabta qaaliga waa kaasana waxaan ku tarsanay karootadii wixii aan ku tarsanay iyo xanuun wixii hadhow kadaal loogu tarayay walaalaha qaaliga hadda waan ka tagsanaynaa suqaarkeena diyaar waaye marka barbaroonigii iyo kor hadhow ugu taraynaa insha allah qaaliga marka tamalo waxayni waan soo qasano waa kaas markaadaan bilaabaynaa dugitaankiisa la socod wanaagsan walaalahayga asxaabta qaaliga maniila wadaagin waan ku shubay marka waan dubaynaa marka 1 iyo 2 iyo aan 3 aan iga tusaa sida aan duwaay malawaxi waaye walaalahayga qaaliga marka dhanka kale u kadinay waa xabadka aan ay tusin waaye aan wadaa dhanka la urugay marka waan kadinaa asxaabta waa kaasa saliidda ku tarsanaynaa kaas aan ku wadaynaa insha Allah asxaabta marka waa kaas 1 iyo 2 ayaan ugu sameeyay malawaxa marka kaas aan ku sameeyay 1 iyo 2 marka sidaas aan ku soo dhameynaa walaalaha qaaliga meel walba dunida ka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waara walaalahayga soo dhawaada walaalaha igu cusub waxaan leeyahay subscribe like comment walaalaha hor ila joogo waxaan like and share and comment walaalaha igu cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada qalbi furan iyo niyad saafi ku soo dhawaada walaalayaal marka malawaxi waa kaas malawaxi waa soo qalalay marka qaybta kale aan fitinaynaa waa kaas walaalahayga jaa way qalasho qaybtaas marka aan fitinaynaa taas aan fitinaynaa waan tuso sidaan ugu shubay marka saas noo la socdo walaalahayga meel baad dunida ka joogtiin waxaan leeyahay walaalayaal hadee kambaleelka furta soo mar walba niigu soo dhaco cashir walba aan soo kaliyo aad ila socotiin marka waa cayaaniita ama cayaan cabdiraxmaan ku soo dhawaada walaashiina aad bay nii jeceshahay marka cawada malawax ay ka shidantaa malawax nala kariya malawaxa waa kaas marka saliidda ku shubanaynaa aan ku yahay saliidda marka badanayna
dhinaca kale wuu bislaaday soo jeedin dhinacana noo dhiman dhinacana saas u soo gudbinaynaa markaas dhinacaas bilaay asxaabta qaaliga waa mahadsantihiin daawashadana taawanaysiin aad baan igu mahadcelinayaa markaasna waan ka dejinaynaa asxaabta qaaliga markaan waan soo dhameynay waan soo karinay waakana maraqi waa kaas waa suqaarkii aan sheegay aan soo karinay waa kaas suqaarkii marka intana waa malawixi waa halkaas waa kaas malawixi sidaas u jilicsan yahay waa u jeedin aad buu u jilicsan yahay asxaabta waa malawixi aan ila soo wadaagay shaahina waa noo kano waa kaas maraqayni oo suqaarkaas sida hore niigu sheegay malawixina waa nii tusay oo waa kaas halkaas noo yaalaa malawixi waa kaas ma jeedin waa kaas sidaas jilaaca ku soo baxay waa kana shaaxiini marka waxaan leeyahay diyaar noogu yihiin asxaabta qaaliga meel baad dunida ka joogtiin waxaan leeyahay casho fudud waaye oo macaan maasha Allah marka waxaan leeyahay walaalaha qaaliga meel baad dunida ka joogtiin caafimaad ku waara waxaan leeyahay walaalaha igu cusub soo dhawaada kuwa hore ila joog waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin walaalayaal daawashada ay daawatiin laagta iyo commentiga quruxda badan aad baan igu mahadcelinaa mar walba ka raali noqdo dariskayga ayaa aad u qaylinayo marka qayladana ka raali noqdo waan iga raali gelinaa walaalahayga qaaliga meel baad dunida ka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waara sidaas ayuu noogu soo baxay cuntadeeni maanta nila soo wadaagay markaan karinayay iyo sidaan u kariyay iyo sidaan ugu tartaray iyo malawixi sidaan ku sameysano waxaan dhan waa nila wadaagay waa mahadsantiin casho fudud ka soo tuurta waan sidaas iyo nabad waxaan leeyahay channelka subscribe like and comment waxaan leeyahay walaalaha dhamaantiina ummadda Soomaali meel baad ka joogtiin caafimaad ku waara sidaas nabadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka asxaabta qaaliga maanta waxaan sameysanaynaa buskudka dheerdheerka ayaa hagaagsanaynaa marka waxaan ka hagaagsanaynaa 6 xabo kun hal kiilo bur sokor inta noogu jirto 2 kooban ugu baahanahay meeshaan waxaa noo yaalo baking powder rooy waxaa noo yaalo xakana vanilla iyo mantega labash waa butter macnaha Soomaali butter la dhahaa laakiin mantega wadankan joogno Portugiiska mantega dhahaan hal koobkaas u jeedin koobkaas oo shaaha ayaan waxaan sameynaynaa labadiisa oo butterkaas waan kululeynaynaa oo butter aan ku dareynaa iyo labadiisa oo sokortaan aad u jeedaan asxaabta marka sidaas ayaan usoo sameysanaynaa asxaabta waana ni salaama halka ka daawanaysiin halka naga daawanaysiin waa kitchen waa Yanita Kitchen and Beauty Channel hilmaansha hadal kuma jira la yiri asxaabtan walaalaha waxaan leeyahay igu cusub subscribe channelka noo saara like iyo comment-gana dhiirigelin bay ii tahay channelku waa channelkiina soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan iyo niyad saafiya marka asxaabteena qaaliga meel baad dunida ka joogtiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid العافية وبسكت كعيدة ayaa naga dhisaa insha Allah wali waxaan ka sameyn rabnaa tii Ilaahay yiraahdo laba kalar oo buskudkaas dheerka marka isku soo rifaaqeynaa oo isku soo qaseynaa marka walaalahayga waxaan leeyahay Ramadaankii aan soo soona Allah naga aqbalo 9 maalmood oo Dilxija Ilaahay naga aqbalo ayaan leenahay meel dunida ka joogan walaalahayga waxaan leeyahay nabiga ku salliyo calayhi salaatu wassalaam اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب العالمين أستغفر الله العظيم
ilaahay dembiyadeenna ha dhaafaan leenahay iyo dembi waalidiinteena dhammaanteena meel walbaan dunida ka joogno. Soomaali maxamedee waa walaashiina ayaaniita waaye heerka maanta amara ilaahay ayaa gaarsiiya alxamdulilah. marka labaad waxaa waaye walaalahay oo garab taagan, walaalahay Soomaaliyeed oo like committee quruxda badan waa niga mahad celinaya mar walba aad ii soo qortaan, aad baa mahadsantihiin walaalayaal. waxaan leeyahay channelka noo share gareeya, like iyo committee ha ka iloobina hadaa daawatiin. daawashada aan daawanaysiin aad baa ugu mahadsantihiin walaalahayga qaaliga marka daawasho wacan walaalayaal. isku soo qasqasaynaa, isku soo dareynaa waxaan dhan ukuntaan ka bilaabeynaa. waxaan ku xijinaynaa silsileen batarka oo 2 koob haddana waxaan ku dareynaa insha Allah. kaamiradaani kaligay waaye, kaliga ayaa gacanta ku hayo marka iima saamaxmayso inaan anigii aan wixii qaso wixiina aan isku daro. sidaas darteed asxaabta marka hadda ukunta iyo waxaan isku darsanaynaa iyo batarka iyo sokorta waa isku soo qasaynaa. markay isku milmaan ayaa haddana waxaan kusoo darsanaynaa biidnillaahi kariim. waxaan kusoo darsanaynaa burki iyo baking powder iyo vanilla aan ku darinaynaa haddana iyo wax yar oo heel shiidan oo qaantada yartii spoonka ayaan ku daraynaa insha Allah biidnillaahi kariim. walaalahayga waxaan leeyahay meel walba dunida ka joogtiin ku ciid wanaagsan maasha Allah. la socod wanaagsan asxaabta waa kaas ujeedin waa isku soo qasnay laakiin lama wadaagin sababtoo hal gacan ayaan ku hayaa kaamirada marka inaan 2 gacmood leeyahay asxaabta. marka waa kaas uma jeedin saas waan shiideynaa insha Allah. makiinada waxaan ku shubaynaa oo hilibka oo aan ku shiidino buskudka dheerka waaye. marka saan u sameynayno la socda asxaabta waa kaas soo rafaadna waa kaas uma jeedin asxaabta waa kaas saas u jilicsan yahay. wixii dhan aan ku darnay ani tusnay waxaasoo dhan ayaan ka sameynay. waa kaas asxaabta waa kaas asxaabta qaaliga asxaabta waa kana marka buskudkii aan soo qasnay aan ila wadaag isagoo qasan waa kana marka isaga waan sharxaynaa ofanka gelinaynaa.
marka asxaabta waa kaas baalkan ku sameynayna waa geedka hilibka lagu shiido baasha loo soo sameeyay ma fahanteen asxaabta waa buskudka dheedheeraay aa u jeedin somahan marka hadda waxaan gelinaynaa oofinka sida noogu soo baxo waa isla arkaynaa asxaabta daawasho wacan asxaabta qaaliga buskudkeena waa kaas foornada noogu jiro foornada waa mid yarta tan weyn ma ahan waa mid yareed asxaabta oo jeedin maleyna waa tii yareed ayay noogu jirtaa waa kaas haddana waa soo bixinayna waa kaas sidaas buskudka noogu soo baxay sama jeedin quruxdiisa buskudka dheedheeraay marka tan waxaan sameynaynaa qayb kale ayaan ila wadaagaynaa oo kalar aan ka dhignay asxaabta buskudka kale waa kalarka ahay marka waa kaas kii kalaan diyaarsanaynaa asxaabta qaaliga saan kusoo dhameynaynaa isna kaamirada nugu dheeraanayso asxaabta waa kaas asxaabta marka hadda saas kusoo dhameynaynaa foornadan gelinayna waa buskudka aan kalar ka soo dhignay kalar leh ku taqnaa asxaabta bismillahi raxmaan raxiim asxaabta qaaliga meel baad ka joogtiin waxaan ilaahay mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa kana sidaa noogu soo baxay buskudkeena wajida laba kalar aan ka dhignay kalarkan waa dareemi kartiin waa kalar cagaar iyo kalarkaan ka dhignay waa kan buskudkeeni sidaas ayuu noogu soo baxay aad u jeedaan asxaabta qaaliga sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay buskudkeena asxaabtu marka waa buskud yar oo kuleed kabeysay marka waa buskudka ciid aan u diyaarsaday waa kaas buskudka ciid waaye sidii horena aan iskugu tartaran waa nila soo wadaagay inkastoo macnaha aan isku daraan tusin laakiin waa nila wadaagay asxaabta qaaliga waxaan leeyahay meel walba aad joogteen ciid mubaarak ka raali noqda qayla yeerayso kastoo aadaanka casirka salaadana wuu dhacoyaa salaati casir la joogaa walaalaha qaaliga meel badan ka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ciida ciid wanaagsan ciidan xalay ciideed kale nabad iyo bashbash barwaaqo aan ugu gaarsiiyay meel badan ka joogtiin walaalahayga qaaliga xalay soo dhawaada channelka channelkiina subscribe like and comment walaalaha igu cusub xalay channelka subscribe noo saara saamar walba u heshiin wax walba aan soo dhigno walaalaha hor ila joog xalay like iyo comment-ga ka tagina walaal istaag waa dhameystaa kaamirada laakiin istaag wax ba ku dhiman wax ku dhin waxa weeyna subscribe-ki waa ilowday walaal waad itaawataa laakiin subscribe ma aad saartid soo subscribe iyo saar channelka soo mar walba kugu soo dhaca cashar walba aan soo dhigo asxaabta qaaliga walaalahay meel badan ka joogteen walaalahay Soomaali waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa anta bikhair sidaas iyo nabadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قاليجة مانتي محاني وضع هرتو أني سلام البدنيد كجوكتين محاني لي عافمات كوارا ولا لهيجة قاليجة سودوايا جنكوا جن الكينة مانتو حسمي سنين اللبينيت أما كستا لبينيت هاجك سنين مانتي مكمشان قدرتي أنا وجدت أنكر وترسلين إن شاء الله marka qudaartii ayaa halkan ugu jirto intana waa kastarkii aan ka hagaajinayn waa kaas asxaabta qaaliga marka waxaan ku darsanaynaa caano aan ku shubanaynaa caanaha waa 4 koob caano marka aan shubanaynaa waa 4 koob
koob oo caano ah waxaan ku darsanaynaa 3 qaanto oo sokor iyo haaf qof walba inta rabto qiyaastiisa ka dhigan karaa aniga sokorta saas uma sii jecel saabta marka waxaan ku darsanaynaa kastarka baakadkaas oo ku jira asagana 4 qaanto ku darsanaynaa asxaabta walaalaha qaali meel baadiyo joogtiin waxaan leeyahay maalintaani wacnaato walaalaha habeen jooga iyo walaalaha maalin jooga waqti walba aatiin waqtigaani wacnaan leeyahay soo dhawaad walaalahayga channelka subscribe noo saara like and comment walaalaha hore ila joog waxaan leeyahay share waa dhankiina dhiirigelinta like-ta comment-ga waa xakiina walaalaha igu cusub waxaan leeyahay soo dhawaada gacmaha ku soo dhawaada iyo niyad saafiya channelka waxaan leeyahay subscribe noo saara soo mar walba cashar walba aan soo geliyo aad u heshaan haddana la socod wanaagsan sida aan iskugu dardareyno halkaa naga daawanaysiin waa kitchen and beauty channel ama ayaanita kitchen and beauty tv asxaabta qaaliga channelka magaca waan ka bedelay magacaas aan u bixiyay marka mar walba magacii hore un baan soo celiyaa marka sorry maqaltama waa ilaahay waxaan mahad celinaa allah subxaanahu wa tacaala oo mar kale iyo kalaada inaan niila wadaago wax walba aan hagaajinayo Allah ayuu mahad celinayaa heerka amaanta kaasi aan soo gaaray ama heerka amaanta ahay alxamdulillah ilaahay ugu mahad celinayaa marka labaad asxaabtayda ayaa mar walba dhiirigeliso sidaas darteed dhiirigelintiina comment-yadiina quruxda badan ayaan halkaan soo fadhiistaa waa mahadsantiin walaalayaal daawashada ay daawatiin marka la socod wanaagsan sidaan waxay u habeynayna insha Allah hadda waxaan soo jaranaynaa biya markay karkaraan dii lagu daro macnaha kuskus oo yeelana burtuur macnaha ama kuskus sida qabtaba dheh taa Soomaali kaltana soori qaantadii kooban ku shubay tii labaad ku shubay tii saddexaad ku shubay tii afraad ku shubay Nena, sekarang aku karena markaas xaawi sidaas aan ugu jeedin ana ayada qabow ku karna markaas waxaan oo dhimin heelka aniga sidaas heelka asaas uma jeceli inaan badsado wax yar ayaan ku darsanaa intaas aan ku darsanaa qaantada teaspoon kooy qaantada yar oo shaaxa ama sokorta shaaxa lagu la qaso waa intaas ku darsanaa kadib waan saaranaynaa inta waxaan aadaynaa jikada waxaan ku darsanaynaa wanaagsan qudaarta waa kaas aan ku saaranaynaa sokortii wixii dhan waa ku darsan marka dabkan waxaa loo baahan dab yar sidoona wixii kaaga yeelan kaa kuban uu kubanayaa kastarka marka dab yar oo baahan markaada jikadii marka asxaabta hadda waxaan saarnay dabkaan saarnay dab ayaan ku karinaynaa macnaha waxaan ku karinaynaa ku karinayno kees marka socod wanaagsan sidaa u karinaynaa asxaabta waa kaas dabkana wuu yaryahay dad badan sal badan hataa macnaha ku shubto ama dad badan ha noqoto geeskiisa kaa aada ugu dheereyso way kaa kubane oo salkii kudhigaysa marka asxaabta intay soo kululaanayso waa ka soo walaaqaa
قالي لبينيتيني أصحاب تقالي جاء من البدن كجوكين واني سلامة شدوادة جنل فينا لبينيتي أنا كان يلسي وذلك كنت كريني حتى يسوي الثاني سادة كينا سنعلم في أصحابه واسي ميكو سنة الثاني أصحابتنا ويكرسموا ساعة ولبنيتي يعني لسه ذاك مركات ساس تقطقوا ساعة ويكرسموا ساعة كوسين سواء ما ويكرسموا أصحابتي ساس ويكرسموا ساعة وسوعد كان ساعتها إذا كنت أنا ولا حبيت إذا تشتع إسكجد أفتيك وكتكتيك أصحابتي وأسألك كل جالسين وكحني لي هاي عيد مبارك أنا بحن كل يقرب أفرها أنا أفر سنة نحط على ميل بدون تجوكتين عيد مبارك كل عام وأنت بخير يتعرفها يا فيك نوصل لليسوع والله ما يعرف لمن يطلع الرسول سننتقل يتعرف عليك النصر السنة أصحاب أنا وذاك لبينيت أنا أفضل وذاك سنة أصحاب قالي جي هات مركز ديار ويكره للنقضة قيلة يجقفتا حافتنا ويكستو واسكبوق بدن تاي كده انت كنا ميل جد كلنا حكوية ميل سنترال معناها افريجيدا كيمانا مثلا رال نقض بوق يا قيلة يا اصحابته وكاس مركا لبينيتيني وانو ديار مركا دوان تجينينا مركا فرنجير كاتوان كوجينينا مركا عبار بناك تالو اي فرنجير كلينينا صوت ايضو كل فرنجير ملكين كرو marka la socod wanaagsan sida ay noogu soo baxday iyo sida hadhow iskugu tarsanayeen iyo qudaarta insha Allah asxaabta qaaliga ah soo dhawaada oo macaankeenna xalawiyaad loo yaqaan waxyaabo lagu afro inta asxaabta afur ahaan oo samaysan kartaa marka xalawiyaadkeena aniga soomanahay waa maalinka ugu dambeysay Ramadaanka bisha Carafa ma sha Allah ilaahay khayrkeeda hana waafajiyo أصحابتك لما أنتم حالي عيد مبارك عيد العافية عيد الشافية مركواكنا أصحابتا حتى صارنا قدرتنا صارنا أنتوا واتمر سو هجاتي سو كوسكوسي أصحابتا كانوا ستروبري واي كنا مجلس كل وابس كتكانين عمرنا وكاس والكان كانوا ستروبري الكواكس أصحابته شرحانينا واكس تركيني لكن أصحابته هم كتر سنينا بابايجي هم كتر سنينا
asxaabta qaaliga marka waa kaas sidaas noogu soo baxday waa kastarki ama labeeniyad waxa rabto aqaan kastarki ama labeeniyadti asxaabta sidaas noogu soo baxday waa kaas asxaabta waa kaas sidaas noogu soo baxday ما شاء الله قدرت أكو شرحنا نواتاس بالكاس وحال ستروبري كدودكي تميرا سوكو كوسي باباي iyo qoq ku tarnay saacada qaaliga meel badunka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waar ciid mubaarak yani dhaaya saacada qaaliga waa nookaas fruitkeena sidaas noogu soo baxay channelku waxaan leeyahay walaalaha igu cusub subscribe noo saara walaalaha hore ila joogo waxaan leeyahay like iyo comment-ga dhiirigelin ay noo tahay channelka like share noo dhaha mar walba aan soo dhaweynaa daawashada ay taawanaysan ku mahadsantiin meel badunka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waar عيد المبارك عيد العافية سيداسي نباتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاد يعني لسه وذاقي سيدان نوصو بحضي معناها عشاد مالتا لها وانكرنا مركا سيدان نوصو تياريني بغشو عن كيف تتنبه سيداسي نباتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا ولا لهيغا قاليغا ميل بدونيدا كجوجتين iyo waqti walba ee tahay waqtiga hani wacnaado halka naga taawanaysiin waa Ayanita Kitchen and Beauty TV in asxaabta maanta Ayanita maxay wataa maanta waxaan ka sameeynaa casho yar oo fudud jibsi ama patati ama baradho la shiilay iyo waxaan sameysanaynaa hada baradhada dabkeena saaran tahay asxaabay in kulay baradho la shiilay qof walba وكرين يكانا واحد اسك ايزي واي كان حتى هو ايزي سو واني لا قيبسنايا waxaan jeclaaday in walaalahayga qaaliga meel badun ka joogan in la qaybsado channelku waa channelkiina halka naga taawanaysin waa Ayanita Kitchen and Beauty TV soo dhawaada Ayanita waxa ugu barateen kitchen waxyaalaha la karinayo iyo beauty oo waxa la isku qurxiyo asxaabe inta waxaan ku haysanaa malaygi ama samaki qof walba sida uu yaqaano samaki ama malay samaki waa af Swahili marka inta waxaan ku haysanaa malay iyo species aan ku dari lahayn waxa waajiyaashii wixii lagu dari lahaa leen la qalajiyay xawaaji kaari maraq digaagi meeshan waxaan ugu jira hal xabo ukun marka saas ula socdo waan isku tarsaneynaa markaan leeyahay walaalaha igu cusub soo dhawaada channelka subscribe noo saara walaalaha hore ila joogo waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin commentigiina aad ka quruxda badan iyo like-ta no like noo saara noo share kareeya walaalayaal meel walba sida uu gaaro waxyaalaha aan soo bandhigno ama aan ku soo bandhignay channelkeena waa channelkiina waa channelka ummadda waa channelka hees Soomaali Maxamed meel badun ka joogto waxaan leeyahay caafimaad ku waara caafimaad ku caweeya waa walaashin Ayanito maxay leedahay Ayanita subscribe noo saara channelka walaalaha waxaan leeyahay subscribe la'aanta itaawado fadlan walaal hataad itaawato ha iga tagin ii fura kambaleelka sida mar walba anjalada walba aan soo dhigo ee kugu soo dhacdo ama aad u heshid insha Allah marka maanta waxaan sameysanaynaa عشان يرقص كفرت إيسي ما نبنا مركب مش عنو يالو ملايجي مركب ملايجا ويري ملاي يريرو هاي ما هن ملاي وويناه كوا يريركي مركب حتى ما نسكت معنا حنكترينا سبيسي دي سيدا وترينا بس على صحابي أصحابي هذا كنت سنينا سبيسيال كنت رينا بنانتوغا سبيسيال
ukuntii aan ugu jirto marka inta waxaan ugu jiro fanaankar ama fanaankari waaye kulli fanaankari qof walba way karanaysaa kali ayaan ku daraynaa asxaabe kali ayaan ku daraynaa asxaabe waxaan sameynaynaa dhanka jikada ayaan aadaynaa asxaabe marka la socod wanaagsan waa wax iska iisi waa kaasata warkaas wixii dhan waan ku tara fanaankariga maraq digaagii iyo wixii oo dhan isbeesiyada waan ku taray marka wax yar mindi ayaan qaadanaa sak aan siinaa sidoo dhexda ugu kala si fiican meeshan waa meesha calooshii laga saaro asxaabe la socdo كل عشاء فضت مركزي عشاء نوقص وبحضنا واني لسعودسينينا هدنا سيدا فريتارينينا أماهن وشيلينو واني لو داقنا إن شاء الله هذا واقف ملايدي وانفتحنا سيدا سنوك أصحابي ملايدي وايه أما سماكي في أنتوين ونوك سيدا سنوك بريكو كفري ساري أنتو كنتوينا مطعان الله هاي عاصمات كوار ملقى جنيكو كتين وعلى نيكو كتين أنتويكو كتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سوى النقاشة مركا لأصحابي واكنا عبتان كيني يعوضا iyo malayga aan soo duubnay waa kaas asxaabe jibsigeena waa kana baradhadii la soo shiilay meeshaas waxaan ugu dhigo mayonnaise intana waa tomato sauce ama tomaatada lagu cuno mayonnaise-ka waxaan leeyahay asxaabe meel badunida ka joogtiin caafimaad ku caweeya oo walaashina yaneeto halkaan naga daawanaysin waa Kitchen and Beauty TV markaas asxaabe sidaas noogu soo baxday waa casho iska fudud kulay baradho la shiilay qof walba way karanaysaa qof aan aqoonin ma lahan asxaabe marka waa sidaas waa baradho yar oo ka tuuran kartid si fudud oo sameeysan marka waa ka saabitaankeeni asxaabe malaygina sidaas noogu tumnay marka qaybta kalena waa taas oo malayga ahaan marka waa kana saxan kana ku soo diyaarsanay waa kaas asxaabe إلى وكوب عبتان كنا ونوكاس أصحابي عني لين هاي ميل بدون ذيك جوكتين channel كوا channel كينا سبسكرايب نو سارة لايك أن كومنتي
walaalaha committeega quruxda badan ay soo diray aad baa mahadsantihiin committeyadiina markaan arko dhiirigelin yaa aad baa ii dhiirigeliseen dhiirigelinta iyo ducada iskugu jirto waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah meel baa dunida ka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waara waa kas cashadeena maasha allah sidaas noogu soo baxday marka sidaas ula socda asxaabey waa wax yar oo kaaban oo casho fudud ah casho culus ma ahan waa casho fudud malaaygan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha fitamiinka laga helo fitamiin E iyo D ayaa laga helaa malaayga wuxuu ka mid yahay hilibka cas asxaabe asaga iyo tuurada marka sidaas iyo nabatiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالية ميل البادون كجوكتين ويانيتا كيتشن اند بيوتي تي في ولا لي قالية وحاني لي هاي سودوادا ويانيتي مركلة أيام حيمان تنيوتا أيانيت كمان تحنيوتا برنامجيد هورو سوشيالي جرتي أما برنامجيد أياني لو ذاك جرتا كو كدوان كواس أو قصة كدعدي هاتا كهر ميدياها أما barta loo yaqaano facebooka waxaa jirtay gabar aan walaasheena ah oo nala soo wadaagtay gabadhaas oo ku dhacday qiso aad u xanuun badan waxay ka baratay barta facebooka wiilku wuxuu ku noolaa wadanka Canada gabadhan wuxuu ku noolaa wadanka Soomaaliya magaalo kamid ah magaalayaasha Soomaaliya marka gabadhii wiilkii waxay la sameysay xiriirkooda socdo gabadhi wiilka xiriirka wuxuu socdo marka tan wuxuu ku dhahay markuu soo gabagaboobay waxay socdeen muddo 1 sano ah markuu soo gabagaboobay xiriirkii wiilkii oo soo diyaar garow dhahay aroos ku soo diyaar garow wiilku wuxuu dhahay anigu waxaan ahay askari Mareykan ah waxaan aadayaa halkaas Iraq wiilka marka walba gabadha wuxuu u sheegaa been oo ku madadaaliya wiilkii uu baxayay dhankaas Iraq aan aado dhahay askari Mareykan aan ahay ama askari loo tiro meelahaas iyo wadamadaas Iraq dagaaladaas aan ka qayb galay uu baxay wiilkii sida meesha ugu maqnaay gabadhii way yaabtay way raadisaa waxay heshay wiil oo saaxiibkiisa ah ama walaalkiisa wiilku wuxuu weydiisay war hebel aaway markaasuu hebel ma ogid miyaa hebel wuu dhintay wuxuu ku dhintay dagaalka Iraq waa la dilay war ma u haysid miyaa maya wiilka marka hadalkaas beenta ah waxa ku soo sheegaya wiilkaas wuxuu leeyahay sidii ku soo weydiiso sidaas dheh okay maalmaha kamid ah gabadhii oo u qaadatay wiilkii inuu dhintay waxa la soo hadlay wiilkii ayaa la soo hadlay hello yaa waay hebel waay war hebel ma tihide hebel wuu dhintay hebel mar hore dhintay adigan hebel ma ahane maxaad rabtaa war aniga hebel aan ahay aniga ma dhiman waa noolahay wiilkaas wuxuu u qaatay inaan dhintay laakiin ma dhiman waxaan ahay dhaawac daran waxaan joogaa meeshaas iyo Iraq hadda waa liiga qaadaa waxaa lii keenaa wadanka Soomaaliya wadan u dhow oo la Djibouti meesha la rabaa inaan dhaawaceega liigu baxnaaniyo saas uga soco haye way fiicanta halkaas ma tagayha anigana waa Soomaaliya joogaa walaalo hadda saas tahay xakan dhaawacaasan ku arkoon ku imaana haye way imaan kartaa bis gabadhii waxay dhahday familkeeda wiilka saaxiibka ahay halkaas oo jooga marka gabadhii wiilkan way jeclaatay laakiin wiilkan gabadhu wuu qayaana macnaha hadda waxaan ka hadlayaa waxyaalaha aan ka digayo waxay tahay beenta laga dhaxlo facebooka waa nolol reality ah oo macnaha been ku dhisan qofkii waxaa lagu leeyahay walaal waan ku jeclahay beena loo sheegay haddana qofka waa la qayaana gabadha marka daacadi ahayd familkeeda la hadashay gabadhii marka cid waxay dhaheen gabadheeni maxaa kugu dhacay wiilkaas uu dhintaa la leeyahay haddana waxaa sheegaysaa wuu nool yahay Djibouti oo la soo qaada Djibouti la keenaa gabadhii marka cid waxay dhaheen adiga waan ku xirxiraynaa maxaan ku geynaynaa meel adiga fiyood caafimaadna ma qabtid marka sidaas darteeda waa iska ka xirxiraynaa gabadhii marka cid waxay dhahdo waa nitooga familkeygiyo wiilkaas halkaas soo jooga halii raadiyo dad waxaa loogu dar marka meesha joogo
waa la weydiiyey wax jooga ma lahan waa la soo waayey wax la keeno meeshaas ma lahan marka waxaa lahay gabadhii iska sabar ninkaas been buu kuu sheegaa iska aamus bis gabadhii waa iska aamustay cunto may cunayso guriga kaligeed iska jirtaa dadkii way ka go'day dadka ma raacdo qof ma xiriiriso gabadhii dadkii dhan waxay la noqdeen qof kale stress oo ku dhacay depression ku dhacay marka dambe gabadhii marka dambe aakhirtaankii waxay iskugu soo aruurtay sheekadii waxay iskugu soo aruurtay asxaabi horta iga raali noqda hadalkii waa nii waday marka tana waa istaajiyey marka iga raali noqda mar labaad gabadhii sheekada waxay iskugu soo aruurtay markii oo wiilkii la dhahay wiilkaas beenu kuu sheegaa marka dambe wax badan soo uga aamusnaa haddana uu la soo hadlay wuxuu ku dhahay ani hadda waxaa la siinaa lacag magdhow ah oo aada u badan waxaan imaanayaa wadanka Soomaaliya waan ku guursanayaa gabadhii haddana runay u aragta hadalkaas waa been okay gabadhii waayahay waan ku sugayaa Soomaaliya ku sugaa ma imaanay haa waa imaana bas ninkaan maba soo socdo gabadhan wuxuu sheegaa been mar walba xurbiya inuu hamiga ka soo rido haddana barti ay kasoo kacday ay dib uga laabato bas gabadhii wuxuu ku dhahayay waan imaanaa Soomaaliya aroosan kuu dhigayaa isku cidaadan kaa doonaa magdhowdaas ha laysoo siinaa saas ula soco walaashahay xabiibtii hay waayahay bas gabadhii way sugtay ninkii ma soo socdo ma imaan rabo gabadhan been mar walba sheegaa bas gabadhii markii dambe wiilkii wuu imaaday maya wiilkii ma imaanin gabadhii wiilkii kale marka dambe wuxuu yiri oo kale oo saaxiibkiisa uu soo wacay war hebel wuu dhintay been waa qof kula soo hadlaa war hebel wuu nool yahay asaga ay la soo hadlay bas war ninkaas ma noolo mar hore dhintay ninkii marka dambe gabadhii ciddeeda waxay dhahday gabadhan way waalan tahay quraan saaranaynaa sababtoo waxaan u aragnaa qof waalan mar walba nin inta la leeyahay wuu nool yahay mar waa isaga soo noolaa wuxuu leeyahay war aniga waa ekano gabadhii marka qisadii ku dhacday waxay la wadaagtay baraha bulshada anigana waxaan ka soo xigtay barta Facebooka macnaha waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka ku dhaco dumarkeena Soomaaliyeed oo mar walba loo geysto sababtoo ah dumarka Soomaaliyeed waa dad masaakiina waa dad aan dhib badnayn marka mar walba waxa waaye waxa media ka dhacayo ama social media dadka waxay u arkaan run qofka waxa ka baranay social media waa la sheekaysanaysaa qofkan ma taqaanid wuxuu macnaha ula jeedo ma sirkooniya oo qarsan ma adigoo run kuu sheegaa marka dhibaatadaas ka imaata xakam social media waa mid aad u xanuun badan mid kale waan ku tarsanayaa ragga qaar hata walaashayna Fahiima horta waxaa leeyahay Fahiimo waan ka raali gelinaynaa dhibaatada kugu dhacday Fahiimo dhibaato aad u xunaa soo gaartay soo qadarna macnaha meesha booski laga rabay kama uuna soo bixin qadar waxaan leeyahay waa inuu xaal mariyaa Fahiimo waa inuu xaal mariyaa dumarka Soomaaliyeed oo raali gelin oo buuxdo oo bixiyaa sababtoo ah gabadhaas wuxuu la wadaagay codkeeda sirta ayadii asaga ka dhaxeeyay wuxuu la wadaagay media marka ragga qaar wax aaminaad ma lahan marka waxaa leeyahay raggi waxaa ku ciyaaray kuwa xun ayaa raggi dhammaayba eebeeyay marka waxaa leeyahay asxaabay qof walba qofka oo horta la soconayo inuu si fiican iskaga fiiriyaa oo si fiican macnaha qofkii adoon ka iska hubin wuxuu yahay ku degdegin xal dad iyo duur waxaan filanaynaa kaaga imaado soo waxaan ka codsanaa walaashayda Soomaaliyeed inay mar walba ay ahaato mid maxallahay tiktoon iska fiirisa qofka ay la soconayso iyo qofka uu yahay iyo meeshuu u socdo iyo meeshuu ka imaanayo soo aniga maxallahay halka aniga taawanaysiin waa Kitchen and Beauty channel Kitchen and Beauty TV وأيانيت Kitchen and Beauty TV sorry هذا الهلمام كم جرى ليري وحالي ولا لها يقول عصب سبسكرايب نو سارة لايك and comment نو شير كري برنامجك سيدو أكارو ولا لها كله مركا حني لي هاي قصة داس وقصة أبي حنون بدن كبدينا مركا تنبو ويكبك صوتي
ninkiina sidiyaa lagu waayay meel oo cayqoob iyo jaan dhigay lama yaqaano marka asxaabay meel baa dunida ka joogtiin waxaan leeyahay isku tuubnaada dad wanaagsan noqda dad qofka bini'aadinka qayaanada ma fiicno soo qayaanada qoyskana way ka imaataa oo qoyska dhexdiisa xataa wuu iskayaanaa ninkii naagta isqabaa iskayaani karo marka qayaanada seeberi ma ahan mid weelkeeda ma buuxdo wuu maran yahay qofka wax qayaanada aakhirka asaga unbay ku foorarsane soo qof daacad adiga ku ha qayaanin qof adiga ku aamintana ha qayaanin soo labadaas way xuntahay inaad qof adiga ku aamintay aa qayaanto qof adiga ku daacadana aa qayaanto oo lukoyso marka waxaan iiga digayaa walaalahayga qaaligee kuwa wanaagsan la hadlaani dadka xun ma la hadlaayay soo dadka wanaagsan waxaan leeyahay oo fiican ka tigloonaada in niila tago ama niila qayaano qofka aad qayaanayana waad garan kartaa actionkiisa iyo wuxuu bixinayo soo mar walba wuxuu daldalayaa hadal tiro badan qofka hadalkiisa markuu aad u badan yahay qayaanadiisana way badan tahay soo hadalkaas tirada badan oo kugu tagi karaa adiga waxaad arkaysaa hadalkan oo daldalayo wax run ah laakiin run ma ahan waa hadal beena marka waxaan taasna ugu baxayaa halkaas waa mahadsantihiin daawashada daawanaysiin meel walba dunida ka joogtiin waxaan leeyahay maalin hateeni tahay haween hateeni tahay waqtiga hani wacnaado Soomaali Maxamed waxaan leeyahay channelku waa channelkiina soo dhawaada niyad furan qalbi furan niyad saafiya iyo walaashiina Ayaanita Kitchen and Beauty TV waxaan leeyahay channelka subscribe like and comment sidaas iyo nabadiina assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالي جمال بدون كجوكتين سودواد ويانيتا كيجينا بيوتو تي في الأيانيتا ما أنت محاي هي وتاو أيانيتا كل أيانيتا وحاجو برتين أنت كرس وحاجو برتين كرر النقطة أصحابي فوق يقلب الموسيقى اللي سوق كرايو كل وتدا وايه wadanka joogna waxaa wadan dadka u jecel yihiin muusika waa dad aad muusika u jecel muusika macnaha ila nool yihiin baan dhihi karaa marka asxaabe waa Ayaanita Kitchen and Beauty TV asxaabta meel badan ka joogtiin waxaan leeyahay caafimaad ku waara walaalahayga qaaliga Ayaanita maanta way murugaysan tahay Ayaanita maanta happy ma ahan aad waxa uu xumaa walaashayda qaaliga marka waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaashayda oo tishay gacanka xaq taran dadka xaq taran ay dhibaateeyeen ka soo tuureen tabaq waa nolosha igu qaadan si aad u xanuun badan arxan darre arxan laawihii dilay waxaan leeyahay ilaahay ha soo qabto iyo kuwii la dileen iyo kuwii dhibaateeyeen gabadhaas walaashayna falka foolka xun u geysteen asxaabay walaalahay waxaan leeyahay u soo duceey walaashayda in ilaahay qabrigeedu waasiciyo qabrigeedu u nuuriyo marka walaalahay qaaliga meel baa dunida ka joogtiin waxaan leeyahay soo dhawaada marka walaashina Ayaanita maanta way murugaysan tahay marka murugtu waxaan la qaybsanaa walaalahayga Soomaaliyeed familkayga waxaan tacsiinaa walaashayda xamda maxamed faarax oo ku geeriyootay magaalada Muqdisho qaasatan lagu aasana Tayniile waxaan leeyahay walaashayda ilaahay qabrigeeda ha waasiciyo ilaahay qabrigeeda ha nuuriyo marka Soomaaliyeed gabdhii mar walba in la dhibaateeyo walaalaha waxaan leeyahay kan dhibaateynay gabar wuu dhalayaa ama wuu dhalay ama wuu dhali doonaa ama way la dhalatay hooyadiisu waa tumar walaashiisu sidoo kale waa tumar soo kuwa kama baqaay miya in hadhow walaashiisa dhibaatadaas ay ku dhacdo oo walaashiisa la dhibaateeyo waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed ka tigtoonaada dadka xun arkaysiin oo mar walba gabdhaha walaalahayna dhibaateynayo hala soo qabto oo cadaalad hala keeno cadaalada ayaa wax walba cadaalad ka weyn qofka markuu cadaalad la marsiyo waxa laga yaabaa inuu iska dhaafo dhibaatada u geysanayo gabadha walaashiisa Soomaaliyeed ama gabadha muslimada gabadhaas waxay gabar afkaaban
gabadhaas waxay ahayd gabar aanan socod badnayn. gabadhaas niman ayaa option u tageen, waa la aftuurtay, waxaa la geeyey meelan karanaynin, siday rabaanay ka yeeleen, kabacdina way tuureen, dabaqay ka tuureen. naxariis garanaa, subxaan allah. asxaabta qaaliga waxaanay leeyahay meel walba adduunka joogtiin, adduunka aad ka joogtiin waa inaad ka xumaatiin falalka xunxunka ay ku sameynayaan dumarka. ragga qaar waad ogeedeen gabadhii walaasheena ee Puntland yariista ahayd, waa cunug yar, waa 11 jir, la kufsaday, la dhibaateeyey, niman waaweyn oo odayaala, subxaan allah, ay dhibaateeyaan. gabdhihii waxay noqdeen in la dhibaateeyo, waa gabdhihii yaryaraay oo ubixi wadanka ah oo biri ahaa lahaay dad wax barto, wadankooda wax u barto, wadankooda wax u qabto. maanta waxaa lagu dhibaateynaa jidadka, waa la aftuubanayaa, waxaa la geynaa meelayna karinaynin, qaarkood waxyaalo aa loo isticmaalaa oo sun ah oo qofka suuxinayo. waan arkaan hadda ka hor gabar taariikh ku dhacday oo ka sheekeynayso magaalada Muqdisho gudaheeda. gabadhaas waxaan ka dhageystay idaacadaha. gabadhaas waxay dhahday waxaan marayay tiri watooyinka Muqdisho kamid ah, waxay dhahday afkaa layga qabtay tiri, miirka markaas igu dambeeyay, sanka wax layga saaray, waxaa la geeyay tiri meel aan karanayn, albaan kasoo kale xataa ma karanayo, laakiin meesha waxay ku taalaa dhulka hoostiisa, meeshaasna waxay ku taalaa Muqdisho gudaheeda. gabadhaas waxaa la rabay xubnaheeda in la qaato oo la jarjarto. dad badan ayaa la weysan yahay, aan arkay facebookyada la leeyahay hebel wuu dhintay, heblaay waa la ayaa nolosha lagu waayay. waxaa loo tiray adeegaa loo tiray, gabadhaas heble adeegii ayay ku maqneed, adeegsay ugu maqneed, cid way raadinayaan. gabadheena ma lahan, halkee qabata ma garanayo, meel ay gabadhaas aad ma yaqaanaan. marka asxaabi dhibaatada loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed aad u badan tahay. walaalyaal inaan ka dhiidhino waaye oon dhahno gabdhaheena ka dhaafa dhibaatada. soo qof walba oo hooyo ay gabar baa tahay, gabar dhali doontaa, walaashaa waa gabar kula dhalatay. soo dhibaatada qof walba oo Soomaantay bini'aadina way saamaynaysaa, qof walba oo bini'aadina, sababta qofka markuu bini'aadin yahay ma dhalin dhulka, hooyaa dhashay, gabaraa la dhalato waa walaashiisa, eedadiisa waa dumar meese ahaan. asxaabta wallaahi waa tacsi aad u xanuun badan, rugo aad ayay igu reebtay. gabadha walaashay waa walaashay, ilaahay ha u naxariistaan leeyahay, qabrigeeda ilaahay ha u waasiciyo. gabadhaa sheekada ayaa nii wada, waa la aftuurtay, waxaa la geeyey godad aynu meelan karinin, dhulka hoostiisa way ka sheekeynayso. macnaa aad ayaan maalinkaas aan uga qaracmay, waan ka naxay, laakiin haddana alxamdulilah dhahay iyadoo nool haddii ilaahay kasoo badbaadiyey. mar labaad adduunka ee la qaybsanaysa qoyskeeda iyo familkeeda nolosha, alxamdulilah. gabadhaas way kasoo tagtay, meesha waxay ku soo baxday qiso la yaab leh oo cajiib ah ay ka sheekeynayso. asxaabi gabadhaas waxaa ku dhacay meesha markay geliyeen, gabadha way baareen, waa la baaray, cuntaa la siiyey, cuntadii diiday. marka asxaabi waxaa nii waday taariikhda gabadha walaasheena gabadha walaasheena taariikhda ka sheekeynayso, macnaha taariikhda ku dhacday. waxay dhahay dhulka markii lii geeyey waxaan ka soomay tiri cuntadii, biyo ii keenayaan, cunta ii keenayaan, waxaa la shaqeeya tiri dad Soomaali dadka ayaga soo qabtaan, laakiin dadka wax dhibaateyna waa ajnabi oo wadanka jooga. gabadhii marka waxay dhahday biyaa lii siinaa, waan diidaa, ma rabo biyo. waxaa lii keenahay tiri cunto ma doonayo, waan ka soomay tiri 2 maalin cunto markaan ka soomay. hal maalin waxaan dhahday ninka meesha u weyn wuxuu ahaayey tiri nin oo ajnabiya. markaas waxaan dhahday caawi. gabadhaas marka jaamacad ayay ka baxday Muqdisho, jaamacadii ka dhamaysay. waxaan tiri help me caawi, bis maxaan kugu caawiyaa, familka hooyaday ayaan la hadlayaa, familkii hal mar oo kalow inaan la hadlo, bis taleefon ii dhiibay dhahday, hooyaday aan wacay dhahday. ku tiri hooyo mana hadli kare dhahday, hooyaday way socday dhahday, waxaa ka qabtay tiri taleefonka walaalkay miidhaa ma walaashay miyaa ma karana hadda xasuusto, qof familka mid ka qabatay, maxaa kugu dhacay heblaayo, meeshaasaan ku jiraa, sidaas la socdo, hadaa dhintana saas u ogaada macnaha
saas u ogaado waa haddaan dhinto iga sabra camal gabadhi maxay dhaheen allah markaas kabacdi taleefonka waa laga qaada waxaa la ogaada inay meesha jirto bas gabadhi marka masaajidyada ilaahay looga barya markaas waxaa lagu dhahay walaashii ku dhahday abbaa masaajidyada ilaahay lagaaga baryaaye masaajidyada lagaaga duceynaaye waxaa la dhahay walaasheen ilaahay nooga soo badbaadi saas ula soco bes gabadhii marka waxay dhahay taleefonka iska dhiib waa layga qaaday dhahday waa lay baaray dhahday macnaha waa lay baaray dhiigkaygaa la baaray waxaa la ogaaday dhahda marka ilaahay amarkiisa waxaa la dhahay tirayda dhan bacaloosheeda dhan waa iyo baarkeeda dhan wuu jiran yahay camal baarkeeda wuu jiran yahay kurtuma camal oo yeeshtay dhahday ilaahay macnaha sidoo ilaahay waxaan kuu qorin horta ma kugu dhacayn mogtahay wax walbo waa qadarullah qofka waxa ku dhacana waa wax loogu ilaahay u qoray wixii ku dhaafana waa waxaan adiga markaas ay kuu qornayn buu ilaahay kuu qorin marka saas waaye gabadhi marka waxay dhahday markaas hadalkii aan waday asxaabay iga raali noqdo gabadhi waxay dhahday nimankii markay ogaadeen inaa baarkayga jiran yahay xaaladeeda ay serious tahay ninkii oo maxay wacayna tiri soomaalidu kaale afka indiya liiga xirxiray tiri indiya kamaa liiga sii waalay waday tiri meel oo jidaa laygu tuuray dhahday marka 2 maalin aan cuntada ka soomay biyuga ma cabaayo aan dhahday bes meesha laygu soo tuuray dhahday waa laygu soo tuuray waa liiga soo tagay bes gabadhi markii laga soo tagay dad Soomaali marka jidka maal jid waa laami waa dad marayaan bes gabadhan oo jidka taala la arko oo suuxsan waa la car isbitaal la kee Filimboyn waxa lagu tuuray ana soo naaxay dhahday dad i kor taagan Filimboyn ugu turan waxa la dhahay intee ka imaatay maxaa kugu dhacay maxaa jidka u tiilay markaas aan u sheekay sidaas ay ugu dhacday taariikhdaas ay ugu dhacday taariikhdan ku dhacday hadda citaada ma taqaanaan meesha takayna waan karanayaa bis waan karanayaa bis okay haye hataa karanaysid hadday saas tahay xabiibtiyey waxaa la dhahay haye waaye hataad karanaysid hay cidda nakeen baawara kuu qaadayna adoo saan jidka uguma sii daynin hay gabadh way baxday ciddeedii aatay bis ciddii loo geeyey ciddi markaa arkeen alxamdulilah gabadhiina waa ilaaha noo soo celiyey marka qisadaas gabadhaas ku dhacday waxaan ku keenay dhibaatada lagu haayo gabdhaha Soomaaliyeed oo jaamacadaha baranayo ama aqoonta baranayo ama ha ahaadan gabar guriga hooyadeed ka shaqeyso ama ha noqoto gabar kale oo si kale nolosha u shaqeysato ama ha noqoto gabar wax barato oo mutacalima ama ha noqoto mid diiniyan barato marka taariikhdii aan ka sheekeynayay waxaan ku keenay gabadha walaasheeda macna dhibaatada ku dhacay gabadha dumarka Soomaaliyeed dhibaatada lagu wado waxaan leeyahay fadlan ka joojiya gabdhaha way walaalihiina way nii dhaxeen way nii dhaleen hooyadiina waaye marka asxaabay meel baa dunka joogtiin waa inaan ka dhiidhinaa oo gabdhaheena Soomaaliyeed dhibaatada laga joojiyo anaka hataan ahnay dumar waa dad aad u jilicsan aan ahnay dhibaatana uma adkaysan karno in gabadhi inta la kufsado la dhibaatay dhowr nin iskugu tagto ayadiyo tabcaan hatana la sii tuuro ama la jarjaro sidii ku dhacday Aisha Cabdullaahi gabadhi lagu jarjaray oo yareed oo 12 jirka ahayd lagu jarjaray Puntland marka asxaabay aad ayaan ugu xumahay waxaan leeyahay ilaahay walaasheen ha u naxariisto gacan ku dhiglayaashii dhibaatadaas geystan waxaan leeyahay ha la soo qabto ha la hor keeno cadaaladda ha shaqeysaan leeyahay dawladana halkan waxaan baaq u tirayaa madaxweynaheena Farmaajo waxaan leeyahay cadaaladda ha shaqeysan madaxweyne soo qabo dadka dhibaatadaas geystay dadka gabdhaha kumaadayo dadka mar walba dhibaateynayo marasta aniga waxaan aqaan marasta dadka dhibanayaasha aan waxna awoodta ilaaha iskale ilaahay ha soo qabtaan leeyahay ilaahay gabadhaas qabrigeeda ha waasiciyo gabar kale dhibaato kale ay naga gaarin asxaabi idinkana sidaas iyo nabaadiino walaasheeda u soo duceeya inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun sidaas iyo nabadgeliyo ducaa ayaa xaqiina marka xalay committee ugu soo duceeya walaasheeda committee ugu soo duceeya ducadiina aan arko asxaabey sidaas iyo nabaadiino assalaamu calaykum
ورحمة الله وبركاته.